بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كانوا إن شاء الله تعالى وحكى بلامي دونا آيات بقول سقالي سيديتناد سورة البقرة، وحنا كل ما دونا إن شاء الله تعالى آيات 202. waxaan weli ku guda jirnaa suuratu lbaqara, jusga labaad ayaynu ku guda jirnaa. marka tafsiirkanina waa tafsiirkii koobnaa ee macaani kalimaad ama istisaarka markaas ahaa, laakiin maadaama aan soo gaadhnay qeybtii axkaamtii, wax yar oo kooban ayaan ka odhan doonaa axkaamta insha allahu tacaala. duruus kalena ama munaasabooyin kalena ayaan insha allahu tacaala aan ku sharxi doonaa axkaamta ku jirta suuradda. yaquulu allahu subxaanahu watacaala: yas'aluunaka cani alahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi walxaj walaysa albiru bian ta'tu lbuyuuta min duhuuriha walakina albira man ittaqa wa'tu lbuyuuta min abwaabiha wattaquu llaha lacalakum tuflixuun. yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan cani alahillati, bilaha xaggooda ayay wax kaa weydiinayaan. ahilla waa jamcu hilaal. bisha halkan la tilmaamayayna waa bisha hijriga ah. marka halkan fuqahadu waxay kasoo istimbaadeen in qofka haddii uu kafaaro gudanayo, ama kafaarata dhihaar ha noqoto, ama yacni waxweyn kafaarooyinka la guto mid ka mid a haddii uu gudanayo, ama kafaarata yamiin, yacni bilaha la xisaabsanayaye waa bilaha markaas hijriga ah. bilaha kale markaa lama xisaabsanayo. sharax badan ayaa ku sugan, laakiin tafsiirkeena ayaa kii koobnaa. markaan yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can alahillati, bilaha xaggooda ayay wax kaa weydiinayaan. qul waxaad ku tidhaahdaa kuwa ku weydiiyey iyo kuwa aan ku weydiinba: hiya, biluhu, mawaaqiitu linnaas, xiliyaal ama xiliyo ayay u yihiin dadka. walxaj, xajkan xili ayay u yihiin. walaysa albiru, wanaagu maaha, bian ta'tu lbuyuuta, inaad uga timaadaan guryaha ama guryaha aad ka soo gashaan, min duhuurihaa, dhabaradooda, yacni xaggooda dambe inaad ka soo gashaan. walaakina hase yeeshee, albira, wanaagu, halkan waxaan usoo qadaraynaa biruman, waa qof biruman waa qof wanaagii, ama waa qof. walaakina hase yeeshee, albira, wanaagu, biru man ittaqaa, waa qofka ilaahay ka baqa wanaagiisa ama samafalkiisa. wa'tu lbuyuuta, uga yimaada guryaha, min abwaabiha, guryo albaabadooda. wa'tu, uga yimaada albuyuuta, guryaha, min abwaabiha, albaabadooda. wattaquu llaha, ilaahay ka baqa, lacalakum tuflixuun, si aad u liibaantaan. halkan waxaa ahlulkufriga reer madiine ah, ahl shirkiga, marka ay soo xajiyaan ama ay soo cimraystaan ay madiine kusoo noqdaan, ayaa waxay odhan jireen guryahayaga albaabkii kasoo gali mayno, xagga dambe ayaa marka ay kasoo gali jireen. qowlkaasina wuxuu ahaa arin waqtigii jaahiliyadda ah. allahna subxaanahu watacaala culeyska ayuu dadka qaaday, waayo gurigu haddii uu dhagax yahay waa in dee ama albaab xagga dambe looga sameeyo. mashaqadaasuu ilaahay subxaanahu watacaala dadka ka qaadaya. waqaatiluu, dagaalama, fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa ku dagaalama. waqaatiluu, dagaalama, fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa, aladiina kuwa, yuqaatiluunakum, idinla dagaalamaya, la dagaalama. walaa tactaduu, hana xadgudbina. yacni waxaad ku dagaalantaan alla subxaanahu watacaala jidkiisa daraaddii, idinkoo raba kelmadda ilaahay inay kor noqoto. waxaad la dagaalantaan kuwa idinla dagaalamaya. walaa tactaduu, hana xadgudbina
oo caruurta iyo dadka waaweyn iyo dumarka iyo haleynina. in allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba. waqtuluuhum laaya qolada gaalada ah ee idinla dagaalamaya xaythu thaqiftumuuhum meeshaad kula kulantaanba ama meeshaad ka heshaanba. waqtuluuhum laaya gaalada idinla dagaalamaysa xaythu thaqiftumuuhum meeshaad ka heshaanba. wa akhrijuuhum ka saara min xaythu akhrajuukum meesha idinka saareen. waalfitnatu fitnada ashaddu ka daran min alqatli dilka. yacni halkan culammadu waxay idhaahdaan haddii qofka laga fitneeyo diintiisa oo diintiisa laga duwo ayaa in laysaga la dilo markaas ka daran. walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina cinda almasjid alxaraami guri masjidka xurmada leh ama masjid alxaraamka agtiisa xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinla dagaalamaan fiihi dhexdiisa, ilaa ay idinkula dagaalamaan masaajidka dhexdiisa, yacni masjid alxaraamka dhexdiisa. fa in qaataluukum hadday idinla dagaalamaan oo idinkula dagaalamaan masaajidka dhexdiisa faqtuluuhum la dagaalama oo laaya. kadaalika sidaasa jazaau lkaafiriina kuwa kaafiriinta abaalkooda au yahay. fa in intahow hadday ka joogsadaan fa ina allaha alle gafuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariista. waqtuluuhum laaya xataa laa takuuna fitnatun ilaa aan la helin fidno wayakuuna addiinu diinkuna au ahaado lilaahi alle. fa in intahow hadday ka joogsadaan falaa cudwaana cudwaan ma ahaanin ilaa cala aldaalimiina ee gardarra ma ahaanin ilaa cala aldaalimiina kuwa daalimiinta a korkooda mooyaane. ashahru alxaraamu bishahri alxaraam. halkan saxaabadu rasuulka ayaa weydiiyeen, yacni markii laga soo celiyey cumradii sanadkii 6aad loo ballan qaaday sanadka dambeyna xajiyaan haddii ay la dagaalamaan bilaa xurmada leh. bilaa xurmada leh waa 4 bilood oo anagii hore munaasabooyin kala duwanna ku sheegnay. waa dilqacda, dilxaja iyo shahrullaahi almuxaram iyo rajab. 4 bilood weeyaan. ashahru alxaraami markaa halkan waxaa loo banaynayaa haddii ay idinkula dagaalamaan marka aad tegaysaan sidii iyaguba ay idinka manciyeen ayaa markaa ayaa abaal u tahay. markaa ashahru alxaraamu bilaha xurmada lihi bishahri alxaraami waxaa qaabilsan bilo xurmad leh, ama bisha xurmada leh waxaa qaabilsan bil xurmad leh. waalxurumaatu xurumaadkuna qisaasun waa laysku qisaasaya, yacni bishii hore ee sanadkii hore bishana u dhigantaa. faman ictadaa qofkii xadgudba calaykum korkiina factaduu ku xadgudba calayhi korkiisa bimithli ma ctadaa calaykum intii au idinku xadgudbay in la eg. wattaqu llaha alla ka baqa waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqay muttaqiinta inuu macooda yahay. wa anfiquu bixiya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa. halkana waxaa la farayaa markaa dadka muslimiinta ama muminiinta ah waqtigii rasuulka iyo wixii ka dambeeyaba jihaadka in wax lagu bixiyo. haddii jihaadka wax lagu bixin waayana qof naftiisa halaagay oo kale marka ayaa laga soo aad ku tilmaamayaan. wa anfiquu bixiya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku bixiya, kelmadda ilaahayna kor noqoto daraaddeed u bixiya. walaa tulquu ha ku ridina biaydiikum gacmihiina ila tahlukati halaag. waaxsinuu wanaajiya ina allaha alle yuxibu almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah uu jecelya. waaxsinuu samafala ina allaha alle yuxibu wuxuu jecelya almuxsiniina kuwa samafala. yacni aayadda marka waxaan ka faa'idaysanaynaa in maalka lagu bixiyo ilaahay daacadiisa sida jihaadka iyo wixii la mida. haddii qofku uu wax bixin waayo oo khayr wax ku bixin waayona qof naftiisii ka manciye khayr ayaa marka aayaddan ay tilmaamaysaa. sidoo kale waxyaalaha yacni naftiina halaag u keenayana ha ku ridina oo wixii dhib u keenayna ha sameynina. aayadda macnahana markaas way tilmaamaysaa, macnayaal kalena tilmaamaysaa, laakiin tafsiirkeenan ayaa kii koobna ah. alla wuxuu leeyahy wa atimuu taam yeela alxaja xajka
والعمرة إيا عمرة لله إلهي درتي فإن أحصرتم هدي لا إذن حبسو ولا إذن كهر جوكسدو فإن أحصرتم هدي لا إذن شرو ولا إذن كهر جوكسدو فأود مركا أدفلن كرويدان حجكي عمردي فما استيسر وحي إذن فضوضاضي ومن الهدي الناف سمية ولا تحلقوا هحيرين رؤوسكم مدحيدين حتى يبلغ الهدي إلا هديق أو قادو محله ميشيسا marka halkan madaahibtu way isku khilaafeen imaam maalik yadu waxay qabaan fa in uxsirtum taasi waa haddii uu idinku hor joogsado oo uu idinka manciyo marad cudur yacni shaaficiyada imaam shaaficina wuxuu qabaa ama shaaficiyadu waxay qabaan waa dagaal xanafiyaduna waxay leeyihiin yacni waxaan ka wada cadow shaaficiyadu waxay qabaan hadduu cadow idinka hor joogsado maalikiyaduna hadduu xanuun idinka manciyo ood gaari weydaan meeshii xanafiyaduna waxay qabaan xanuun iyo cadow labaduba marka hadday idinka hor joogstaan inaad gudataan manaasigtii xajka haddaba alle wuxuu leeyahay waatimuu taam yeela alxaja xajka walcumrata iyo cumrada lilaahi alla dartii fa in uxsirtum haddii la idinka hor joogsado famastaysara ay facalaykum korkiina waxa af mastaysara wixii idin fududaaday oo min alhadi hadi ah oo neef ah inaad neef gowracdaan walaa taxliquu haxiirina ru'uusakum madaxyadiina xataa yabluqa alhadyu ilaa au gaadha hadyigu maxillahu meeshiisa marka maxillahudaasi waa meeshii lagu gowracay ayaa laga wadaa waxay maalikiyadu maadaama ay qabaan xanuunka waxay aaminsan yihiin inuu hadyi qofkii au diro waayo hadyigu uu gaari karaa shaaficiyada qowlka u qabaan haddii uu cadow yahayna meeshaasaa lagu gowracayaayo demaba gaari karo markaa kii labadana way qabaan markaas xanafiyadu faman kaana minkum midkii idinka mida faman kaana qofkii ahaaday minkum waa idinka idinka mida mariidan qof buka aw bihi adan ama ay ku sugan tahay dhibi min ra'sihi madaxiisa fa fidyatun ay fa calayhi korkiisa waxa ah fidyo ayaa korkiisa ah oo fidyadaasoo maxay ah min siyaamin soon ah aw sadaqatin sadaqad ah aw nusuk ama gowrac ah yacni neef adhiya inuu gowraco fa idaa amintum marka aad aamin noqotaan faman tamataca qofkii ku tamatuca bilcumrati cumrada ila alxaji xajka famastaysara waxaa korkiisa ah wixii u fududaaday oo min alhadi hadi yacni inuu neef gowraco ah faman lam yajid qofkii waaya fa siyaamu 3 ayaamin isna ay fa calayhi korkiisa waxa ah siyaamu 3 ayaamin maalmo 3 ah soomidood filxaji xajka inta uu jooga yacni muddada xajka uu joogo wa 7 idaa rajactum marka aad guryihiinii aad ku noqotaan wadamadiinii aad ku noqotaan yacni haddii halkan lagu joojiyo waxaa la moodi lahaa 3 iyo 4 kale laakiin ilaahay uu sii waadixinaya wuxuu leeyahay tilka taasi 10 waa 10 kaamilatun buuxda daalika xukunkaasi liman lam yakun wuxuu u ahaaday qofka liman waxaa xukunkaa leh oo leh liman lam yakun ahluhu qofka auna ahalkiisu joogin liman lam yakun qofka auna ahaan ahalkiisu xaadir ilmasjid alxaraami kii deganayn yacni kii auna eeg liman lam yakun daalika xukunkaasi liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraami qofka ehelkiisa auna deganayn masjid alxaraamka ayuu u ahaaday wattaquu llaha ilaahay ka baqa waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle shadiid alciqaabi kii ciqaabtiisu ay daran tahay marka inuu yahay aayaddan markaa aqwaal fara badan ayaa ku sugan marka in yar uma wax ka taabanay laakiin insha allahu tacaala munaasabad kale ayaynu kaga hadli doonaa si faahfaahsan haddaba xajku waxaan idhi wuxuu u kala baxaa 3 ayuu u kala baxaa ifraad qiraan iyo tamatuc haddaba midkee fadli badan ifraadka ama tamatuca ama markaa qiraanka
koox fariiqun min ahli ilcilm waxay yidhaahdeen alifraadu huwa alafdal. qowlkaana imaam ashanqiiti ayaa kitaabkiisa adwaa'u lbayaan ku faahfaahiyey isagoo matalaya markaa fariiqun min almaalikiya. imaam ashanqiiti markaa wuxuu leeyahay oo ku celeynayaa qiiraanka iyo tamatuca labadaba damu jubraan ayaa waajiba. sida awgeed ilaahay wuxuu leeyahy alla subxana watacala aayadda le wa atimu alxaja walcumrata lilah, dhammaystirku waa ifraadka. koox kalena waxay yidhaahdeen qiraanka ayaa ugu wanaagsanoo waayo ilaahay ayaa u dooray rasuulka, oo rasuulku wada xasuusta markuu soo xajiyey inuu yidhi waxa mid ii yimiday marka ilaa aakhir alxadiis. marka ilaahay baa marka u dooray inuu isagoo qaarin ah uu sameeyo. koox saddexaad ayaa jirto, iyagu waxay idhahdeen tamatuca ayaa ugu fadli badan, waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa suqtu lhadya walaa jacaltuha cumra. qolo afraad ayaa jirta oo iyagula tamatuca waa waajib, qowlkooduna waa qowl baciid ah, waayo wuxuu ka fog yahay jawiga kitaabka qur-aanka kariimka ah. waa alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay faman tamataca bilcumrati ila alxaj. halkaana waxaa laga fahmayaa inay markaa jiraan dad markaa aan tamatucayn. sharax fara badan ayaa ku sugan insha allahu tacala, laakiin intaa ayaynu kusoo koobaynaa. alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alxaju, xajku ama waqtiga xajku ashhuru macluumaat waa bilo la yaqaano. faman farada qofkii isku waajibiya fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xajka falaa rafatha khaasawo dumar ama jimaac ma jiro. yacni xurima calayhi aljimaac walmuqadimaatihi, waxyaalaha galmada ah iyo waxyaalaha hordhac ee ka horeeya waa ka xaaraan labadaasiba. walaa fusuuqa, faasiqnimana waa ka xaaraan, walaa jidaala, doodina waa ka xaaraan fi lxaji xajka dhexdiisa. alxaju xajku ashhurun waa bilo macluumaatun la yaqaano. faman farada qofkii isku waajib yeelay fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xajka falaa rafatha, jimaac ma ahaanin, walaa fusuuqa, faasiqnimana ma ahaanin, walaa jidaala, doodna ma ahaanin fi lxaji xajka dhexdiisa. wamaa tafcalu waxaad samaysaan min khayrna oo khayr ahna yaclamu allah ilaahay wuu idiin ogyahay. watazawaduu, sahay qaata, fa ina khayra zaadi taqwa, sahay tan ugu khayr badani alla subxaanahu watacaala alla ka cabsigiisa weeyaan. wattaquuni, anigana iga baqa buu leeya alleh, yaa alxaju xajku ashhurun waa bilo macluumaatun la yaqaano. faman farada qofka isku waajibiya fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xaj falaa rafatha, wax jimaaca ama haasaawo dumar ma ahaanin, walaa fusuuqa, faasiqnimana ma ahaanin, walaa jidaala, doodna ma ahaanin fi lxaji xajka dhexdiisa. wamaa tafcalu waxaad samaysaan min khayrin khayr ah yaclamhu llah ilaahay wuu idiin ogyahay oo idinka abaalmarinaya. watazawaduu, sahay qaata, fa ina khayra zaadi taqwa, sahay tan ugu khayr badani alla ka cabsiga alle weeyaan. wattaquuni, anigana iga baqal buu leeya alla yaa ul albaab, kuwa caqliyada u saaxiibkoohu. laysa calaykum korkiina maaha junaaxun dembi an tabtaquu inaad dalabtaan fadlan dheeraad min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday. fa idaa afadtum markaad kasoo butaacdaan eed kasoo shubantaan kasoo dhaqadaan min carafaatin carafaat fadkuru llaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraami, mashcar alxaraamka agtiisa. waa halkaasi waa makaanka layidhaha musdalifa, waxayna ka mid tahay meelaha markaas xajka lasoo maro. 3 magac bay leedahay, musdalifana waa layidhaha, aljamcina waa layidhaha, mashcar alxaraamna waa layidhaahdaa. wadkuruuhu alla xusa kamaa hadaakum sidii au idinku hanuuniyey, wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hadda ka hor la min addaaliina kuwa lunsan baad ka mid ahaydeen, ee ilaahay baa idinsoo hanuuniyey. uma intaa kadibna afiiduu iska soo shuba oo kasoo butaaca oo kasoo dhaqaaqa min xayثu afaada annaasu, meesha dadku ay kasoo butaacaan ay kasoo dhaqaaqaan. wastakfiru llaha ilaahayna dembi dhaaf weydiiya, in allaha alle gafuurun waa mid dembi dhaaf badan, raxiimun oo naxariis badan. halkan mushrikiinta ahlulxumus ayaa la odhan jiray, kuwa reer qureysheed
marka ay xajiyayaan waqtigii jaahiliyadda musdalifi ayay istaagi jireen. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam markuu xajiya way eegayeen, maadaama isagu reer qureysheed ahaa, inuu musdalifo istaago iyo inuu carafaad dhaafo. marka dadka kale carafo ayay kasoo butaaci jireen. kuwa qureyshtiina maadaama uu xaramka ayna ka mid ahayn carafaad, waxay odhan jireen anagu waxaan nahay ahlbeyt, halkanaan nahay reer qureysh, waxaan joogaynaa musdalifa. ilahi wuxuu leeyahy uma intaa kadibna arrintaasa markaa la joojinaya. uma intaa kadibna afiidu kasoo shubma oo kasoo butaaca min xaytu afaada annaasu meesha ay dadka kasoo butaacaan, wastakfiru llaha ilaahayna dembi dhaaf weydiista, in allaha alle gafuurun waa mid dembi dhaaf badan, raxiimun oo naxariista. fa idaa qadaytum marka aad gudataan manaasikakum manaasigtiina, fadkuru llaha ilaahay xusa kadikrikum sidaad u xusi jirteen eed ugu faani jirteen aabaa'akum aabayaashiin, aw ashadda dikraa ama si ka adag. fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu mid yidhaahda rabbanaa rabbigayow aatinaa waxaadna siisaa fi dunyaa adduunyana sii, wamaa lahu kumana laha fi laakhirati yacni uguma sugnaanin aakhiro min khalaaqin wax nasiib ah. yacni dadku marka la tago xajka, dadka qaarkood adduunyay weydiistaan ama ilaahay markay baryaan oo laba u kala baxayaan. qolana ilaahay waxay weydiistaan adduunyo iyo markaas aakhiraba. waminhum waxaa ka mid a man yaquulu mid yidhaahda mid yidhaahda rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyadan xasanatan wanaag, wa fi laakhirati aakhirana nagu sii xasanatan wanaag, waqinaa naga ilaali cadaaba naar naarta cadaabkeeda. ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin nasiib bay ku leeyihiin mimaa kasabuu waxay kasbadeen, wallaahu allana sariicu lxisaab waa mid xisaabtiisu ay degdegto.